kulan wacan oo wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu darrona waxaa ka mid ah dagaalo lagu halaagsamay oo ka socda gudaha dalka Itoobiya iyo TPLF oo sheegtay inay qabsatay magaalada Lalibela ee qadiimiga ah ee boqortooyinka dalka Itoobiya ugu dambeeyayba ay u tagi jireen cibaadada iyadoo maalmihii ugu dambeysayba dagaalo xoogan ay halkaasi ka socdeen maalintii saddexaadna duqeymo ayaa ka socda caasimada maamulka Tigreega ee Maqale iyadoo dhimashada iyo sidoo kale dhaawacba si loo kala ururiyo laleeyahay qaramada midoobay oo war ka soo saartay duqeymaha halkaasi ka socday dagaalka ka dib uga bilowday dalka Itoobiya dowladda federaalka oo afka furatay sheegtayna inay shuruud la galayso wada hadal Tigreega iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalka Itoobiya oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega isla markaana ka codsaday shacabka Tigreega in ay ku cadaadiyaan madaxda horkacaya dagaalka dhinaca Tigreega in wada hadallada si rasmi ah ay u ogolaadaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo baaq u diray beesha caalamka inay soo dhaxgalaan dagaalka dib uga furmay dalka Itoobiya jabhadda xoreynta Oromiya oo sheegtay in ay u jirto caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa in ka yar 30 kilomitir haddaba maxaa ka jira jabhadda sheegashada ay sheeganayso faana oo diyaar garowday iyo ciidamada deegaanka axmaarada oo gabi ahaanba heegan la geliyay kuna sii qulqulahaya furimaha hore ee dagaalka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga BB Aadan Faarax iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cajar oo go'aan ka gaaray saddexdii degme ee galbeedka gobolka City maxaa ka jira ku wareejinta la sheegay in ay ku wareejiyeen deegaanka Canfarta labada degme ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku qanciyay dowladda deegaanka Soomaalida se maxaa ka jira duqaasha iyo sidoo kale waxgaradka dowladda deegaanka Soomaalida oo kulamo goosgoosa ku yeelanaya magaalada Jigjiga qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogonaysaan hadduu eeba yiraahdo balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu ku soo gaaro muuqaalka like saar oo aragtidaada noogu reeb qaybta commentiga nagu soo biro naga mid noqo waana kaga mahadcelinaynaa la joogitaankaada mahadsanidin aan ku bilownay dagaal lagu halaagsamay ayaa ka socda maalintii afraad gudaha dalka Itoobiya iyadoo dhinacyadu ay ku isku eedaynayaan oo midba midka kale uu ku eedaynayo inuu isagu soo qaaday hase ahaatee dagaalka ayaa ka duwan dagaalkii bilihii ugu dambeysay ka socday gudaha dalka Itoobiya dagaalkan waxaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo midba awoodiisa uu adeegsanayo oo waxba la isku reebanaynin dowladda federaalka ayaa maalmo ka hor waxay sheegtay in awoodeeda ugu dambaysa ay u adeegsanayso TPLF maadaama iyadu ay jabisay wada hadaladii lagu dhexdhexaadinayay ama wada hadaladii looga wada hadlayay sidii loo joojin lahaa dagaalka isla markaana isafgarad looga gaari lahaa xtabashooyinka iyo waxa la isku hayo TPLF ayaa dhinaceeda waxay sheegtay in dowladda federaalka bilihii ugu dambeeyayba qorsheynaysay in dagaal ay ku qaado deegaanka Tigreega taasina ay fahmeen oo taasi ay ku sababtay in ciidamadoodu ay weerar soo qaadaan TPLF ayaa gudaha ugu soo qulqulaysa dhinaca dowladda federaalka iyadoo weeraro kala duwan kaga soo qaaday dhinaca deegaanka Canfarta iyo dhinaca deegaanka Axmaarada waxayna maanta sheegtay TPLF inay gacanta ku dhigtay magaalada Lalibela ee qadiimiga ah ee madaxdii ugu dambeysay iyo sidoo kale boqortooyinkii dalka Itoobiya ay cibaadada u tagi jireen laba maalin ka hor ayay TPLF halkaasi soo gaadheen iyadoo ay ku adkaatay gacan ku haynta magaalada hase ahaatee si hordhacaya TPLF u sheegeen inay iyagu gacanta ku dhigeen magaalada Lalibela xalay ilaa shalayto duqeymo xoogan oo dhinaca cirka ayaa kaga socday magaaladaasi hase ahaatee magaalada ayaa ah magaalo qadiimi ah isla markaana magaalo buuraley ah ayna adag tahay cidii gacanta ku dhigto in dib looga saaro iyadoo TPLF ay sheegeen si hordhacna ay u shaaciyeen in gacanta ay ku dhigeen waxayna sheegeen ciidamo aad u tiro badan in halkaasi ku dileen sheegashada TPLF dowladdu kama aysan jawaabin walow dagaalku wali uu socdo oo dhinaca dowladda federaalka wax wara kama soo bixin oo ku aadan sheegashada TPLF ay sheegatay magaalada Lalibela dhinaca kalena duqeymo xoogan ayaa maalintii saddexaad ka socda magaalada Maqale ee caasimada maamulka Tigreega iyadoo dowladda federaalku ay halkaasi walaac weyn ka muujisay oo ay ku sheegtay in iyadu ay beegsanaysay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan TPLF oo ku dhumaalaysanaya goobaha ay dowladdu beegsatay ee ay duqeymaha la dhacday dowladda federaalka war ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin duqeymahaasi walow ay sheegeen ciidamada cirku in ay iyagu beegsadeen mas'uuliyiin sarsare oo ku sugnaa goobta duqeymuhu ay ka dhaceen qaramada midoobay iyo sidoo kale dad shacab oo goobta ku sugan ayaa la sheegay in duqeymahaasi lala beegsaday goob xanaano ciyaala isla markaana ay ku dhinteen caruur iyo duqey halkaasi ku sugnaa qaramada midoobay ayaa sheegtay inay marna aqbalaynin duqeymaha iyo dagaalka xoogan ee waxba la isku reebeenin in lagu waxyeeleynayo shacabka iyo masaakiinta caruurta waxayna sheegeen in duqeymihii saddexdii bari ee ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Maqale lala beegsaday caruur iyo duqey ku sugnaa goob xanaano ah waxayna sidoo kale si weyn ugu cambaarayeen dowladda federaalka iyo talaabooyinka ay qaadayaan iyo duqeymaha dhinaca cirka ee ay ka wadaan magaalada Maqale dowladda federaalka ayaa la garanaynin ujeedka ay ka leedahay duqeymaha magaalada Maqale iyadoo dhinacoodu ay sheegeen inay la beegsanayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan TPLF
hase ahaatee dowladda federaalka ujeedkeeda ayaan caddayn ay dib ugu dabamartay goobaha dagaalku ay ka socdaan islamarkaana magaalo nabada ay duqaymaha uga geysanahayaan. qaramada midoobay ayaa amar ku bixisay labada dhinacba inay sida ugu dhaqsiyaha badan la joojiyo dagaalka, walow dhinaca kale la sheegaya in qaramada midoobay naftirkeeda ay dabada ka riixayaan dagaalka dib uga bilowday dalka Itoobiya, iyadoo dowladda Mareykanka marar badan lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka gudaha dalka Itoobiya ka socda islamarkaana TPLF ay taageerahayaan. dhinaca kale dowladda Suudaan iyo sidoo kale Masar ayaa lagu eedeynaya inay qayb ka yihiin dagaalka dib uga bilowday dalka Itoobiya islamarkaana hubkan casriga ee TPLF ay adeegsanayaan ay ayagu bixiyeen. waxaa dhinaca kale dowladda federaalku ay ku eedeysay TPLF in ay haysato diyaaradaha dagaalka, walow maalmo ka hor dowladdu ay sheegtay diyaarad dagaal inay ku soo riday gudaha dalka Itoobiya, kuwa taasi oo ay adeegsanayaan ciidamada TPLF ayaan wax jawaaba ka soo saarin eedeymaha dowladda federaalka kaga imaanaya ee ah in hubka iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka saanada ciidanka dhaqaalaha ay siinayaan dowladda Masar iyo Suudaan. afhayeenka TPLF ayaa sheegay in dowladda duqaymaha ay ka wado magaalada Maqale ay tahay mid nafcaari ah islamarkaana lagu jabiyay dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya, wuxuuna sheegay jabkii ka soo gaadhay halkaasi in ay xanaaq ugala dul dhaceen caruurta masaakiinta iyo goobaha amniga oo duqaymo ay ka wadaan. wuxuu sidoo kale ku sheegay in la soo afjari doono islamarkaana wada hadal aysan aqbali doonin, walow dhinaca dowladdu wali ay wado waan ay ku doonayso sidii joojin loo samayn lahaa oo wada hadal loo bilaabi lahaa. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Itoobiya oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa baaq u diray shacabka Tigreega oo ugu baaqayna in ay ka hor yimaadaan dagaalka dhinaca Tigreegu ay soo qaadeen ee ay ku soo qaadeen gudaha dalka Itoobiya. wuxuuna ka codsaday shacabka Tigreegu in ay ka hor yimaadaan mas'uuliyiintan dagaalka ku soo qaaday gudaha dalka Itoobiya in ay ogolaadaan wada hadallada dowladda federaalka iyo sidoo kale midowga Afrika ay wadaan si loo joojiyo xabadda. wuxuu sidoo kale walaac weyn ka muujiyay dagaalka dib uga bilowday. wuxuu sidoo kale sheegay in shacabka Tigreegu ay ku sugan yihiin xaalad aad u adag islamarkaana loo baahan yahay in la badbaadiyo oo wada hadallada dib loo furo. wuxuu dhinaca kale xusay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay sidii dib loogu badalaabi lahaa wada hadal udhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka islamarkaana dowladdu ay diyaar u tahay midowga Afrikana ay gadwadeen ka yihiin. dhinaca Tigreega wax wara kama soo bixin oo wasiirka gaashaandhigga hadalkiisa ku saabsan iyo jawaab ay kaga bixinayaan cabashada iyo sidoo kale baaqa uu u diray shacabka Tigreega ayuu si weyn ugu nuuxsaday in loo baahan yahay inay dib u fiiriyaan dhibaatada shacabkooda haysata ee ka taagan gudaha deegaanka Tigreega ayna u danqadaan shacabkooda. wuxuu dhinaca kale xusay in dowladda federaalka iyagu ay ku jiraan duqaymahana la joojinayo dagaal uusan sii soconaynin islamarkaana dowladda federaalku ay ka go'an tahay sidii wada hadal loola furi lahaa TPLF ama Tigreega. wuxuu dhinaca kale sheegay in iyagu dadkooda ay u turahayaan islamarkaana aysan dhab ka hayn weerarada iyo dagaalka ay kula jiraan ciidamada Tigreega, awoodda Itoobiyana aysan u adeegsanin Tigreega. wuxuu dhinaca kale sheegay ciidamadoodu in aysan awoodii ugu dambeysay u adeegsanaynin weerarada iyo dagaalka ay kula jiraan ciidamada Tigreega islamarkaana ay yihiin ciidamo la marin habaabiyay oo mas'uuliyiin xildoon ah iyagu ay marin habaabiyeen oo aragti kale ay ku shubeen. wuxuu dhinaca kale xusay in dabada ay ka riicayaan dowlado shisheeye oo aan doonaynin horumarka shacabka Itoobiyaanka iyo sidoo kale barwaaqada ay ku jiraan dowladnimadooda iyo midnimada ayna ka shaqaynayeen muddo dheer sidii Itoobiya ay u burburin lahaayeen. wuxuu dhinaca kale sheegay inay la xisaabtami doonaan cid walba oo faragelin ku haysa gudaha dalka Itoobiya. jabhadda xoreynta Oromiya oo iyadana dagaalo xoogan ka wada gudaha dalka Itoobiya ayaa sheegtay in caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay u jirto in ka yar 30 kilomitir, walow sheegashadeeda dowladdu aysan ka jawaabin. dadka deegaanka ku sugan ayaa sheegaya in walaac weyn ay ka qabaan mar walina ay weerar soo qaadi karaan jabhadda xoreynta Oromiya islamarkaana ay dhaqaaq ciidan ka wadaan duleedka magaalada Addis Ababa, walow la ogsoon yahay deegaanadaasi in ay u badan yihiin qowmiyadda jabhadda xoreynta ay ka soo jeedaan ee Oromada ayna degan yihiin agagaarkaasi mar walina ay dagaal ku soo qaadi karaan caasimadda Addis Ababa. taageero buuxdana ay ka haystaan shacabka deegaanka Oromada. hase ahaatee ciidamada dowladda oo halkaasi ayagana ku sugan ayaa iska caabin iyo sidoo kale dagaalo xoogan kula jira bilihii ugu dambeeyay. dowladda federaalka ayaa howlgal ciidan oo ay ugu magac dartay kala sarreynta sharciga dhowr bilood ka hor ku qaaday jabhadda xoreynta Oromiya, iyadoo ciidamada militariga ee dalka Itoobiya ay sheegeen inay guulo waaweyn ka gaadheen. hase ahaatee jabhadda xoreynta Oromiya ayaa mar waliba soo bandhigaysa ciidamadii ugu badnaa iyo dowlatusyo iyo sidoo kale deegaana ay sheegeen inay ka qabsadeen ciidamada militariga. sheegashada guulaha
ayaa wax caadi ah ka ah gudaha dalka Itoobiya iyadoo midba midka kaleeto uu sheego inuu ka guuleystay waan jajabinay waan burburinay waan ka qabsanay ayna tahay luuqadda kaliya ee ay adeegsadaan dhinacyadu dhinaca kaleeto dagaalada iyo gulufka colaadeed ee ka socda gudaha dalka Itoobiya ayaa noqon karta mid fursad siin karta jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya iyadoo inta badan jabhaduhu ay heshiis ka yihiin sidii Abiy Ahmed loo dhaafin lahaa xilka isla markaana loo dhisi lahaa dawlad wadaaga oo dhinacyadu ay isla ogol yihiin jabhadda Tigreega ayaa heshiis la gashay jabhadda xoreynta Oromiya jabhadda Bishaangul Gumus jabhadda Gambela iyo jabhad kale oo ka dagaalamaysa gudaha deegaanka Canfarta jabhadahaasi dhammaantood waxaa la sheegay inay ka shidaal qaataan oo inta badan amarada ay bixiyaan jabhadda Tigreega oo in ka badan 30 sano maamuleysay dalka Itoobiya waana midda dawladda federaalka wiiqaysa ee ka dhigaysa ama ku khasbaysaba in wada hadal ay la galaan TPLF dawladda federaalka Itoobiya bilihii ugu dambeeyayba waxay sheegaysay in wada hadal shuruud la'aan ay la galaysa TPLF jabhadaha kalena ay dagaal ku soo afjari doonto taasi oo TPLF marar badan ay ka hadashay ayna sheegtay dhammaanba jabhadaha iyo xisbiyada mucaaradka ee gudaha dalka Itoobiya waa in ay qayb ka noqdaan wada hadallada oo ayaga kaliya aysan u oolin badbaadinta dalka Itoobiya waasay hadalka u dhigeen dhinaca kale dawlad deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii ugu dambeysayba marti gelinayay dagaal xoogan oo kaga imaanayay dhinaca deegaanka Canfarta madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa maalmo ka hor shaaciyay in laba degmo uu ugu daray galbeedka gobolka City halkaasi oo ay dagaal ka socdeen dhaliilo xoogana loogu soo jeedinayay xukuumaddiisa laguna eedeynayay in shacabka badbaadinta shacabka iyo sidoo kale ilaalinta amniga ay ku guuldareysteen dadka ku sugan galbeedka gobolka City ayaa aaminsan in xukuumadda madaxweyne Cagjar in ay hagratay oo ay ka seexatay isla markaana aysan diyaar u ahayn la dagaalanka kooxaha ku soo duulay deegaanka Soomaalida waxayna sidoo kale iyagu ay sheegeen in aysan marna ka tanaasuleynin deegaanada dagaalku uu ka socdo oo ay difaacan doonaan dhulkooda madaxweyne Cagjar iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga barwaaqo ee BB Aadan Faarax oo ku sugan magaalada Jigjiga ayaa si wadajir u soo saaray in degmooyinkaasi loo ansixiyay gobolka City waxayna u muuqataa in saddexdii degme ee dagaalku ay ka socdeen in gabi ahaanba lagu wareejiyay deegaanka Canfarta oo la doonayo in shacabka galbeedka gobolka City ka soo qaxay lagu samirsiyo labadaasi degmo dhulkaasina dad badani ay ku dhamaadeen dagaal xoogan uu ka socday sanadihii ugu dambeeyay isla markaana qorshaha dawladda federaalka iyo ku mas'uuliyiinta dawlad deegaanka Soomaalida in ay isku wada raaceen in gabi ahaanba Canfarta lagu wareejiyo degmooyinkaasi oo faraha looga qaado waana mid hadda keentay in laba degmo oo kaliya lagu daro galbeedka City ama gobolka City isla markaana shacabka indhahooda lagu tijeediyo labadaasi degmo ee cusub si ay uga tanaasulaan dhulkan uu dagaalku ka socday ee lagu xasuuqay ee dadkoodii iyo hantidoodii ay ku waayeen degmooyinkan hadda dagaalku uu ka socdo oo sanadihii ugu dambeeyayba dagaalo xoogan ay ka socdeen ayaa hadda waxaa la sheegay inay gabi ahaanba gacanta ugu jiraan ciidamada Canfarta qorshahan ku wareejinta magaalooyinkani ama degmooyinkani ciidamada Canfarta waa mid dawladda federaalku ay dabada ka riixayso heshiisna ay ku yihiin mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawlad deegaanka Soomaalida oo uu ka mid yahay mudanaha laga soo doorto deegaanadan ay dagaalku ka socdaan oo lagu magacaabo Aadan Faarax ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga BB ee hadda talada haya waana mid ay ka wada midaysan yihiin isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya cuqaasha iyo waxgaradka dawlad deegaanka Soomaalida ayaa si weyn u hadal haya dhacdadani iyo ku wareejinta degmooyinka lagu wareejiyay deegaanka Canfarta ee Soomaalidu ay lahaayeen waana midda magaalada Jigjiga maanta ugu hadal haynta badan ee shacabku ay sidii weyn isha ugu hayaan walow mas'uuliyiintu aysan weli ku dhawaaqin waxayse u muuqataa in heshiis lagu galay wax lagu gatayba labada degmana lagu qanciyay isla markaana deegaanadaasi ay haddaba gacanta ku hayaan oo maamulahayaan deegaanka Canfarta gawaari ay lahaayeen xafiiska biyaha iyo xafiiska jidadka ee dawlad deegaanka Soomaalida hanti aad u fara badan ayaa gacanta u galay ciidamada Canfarta waana midda shacabka dawlad deegaanka Soomaalida ay la fajacsan yihiin waxaana magaalada Jigjiga 24 saac ugu dambeeyay ka socday shirar goosgoosa oo looga arinsanayo sidii laga yeeli lahaa shacabka dawlad deegaanka Soomaalida iyo xukuumaddan ku fashilantay ilaalinta shacabka iyo dhulka Soomaaliyeed bixinaysana dhul ay Soomaalidu lahayd wararkeena dambe wixii ka soo kordha ayaad kaga boganaysaan tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan idinka tagaynaa amaana Allah